السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وابر وصول ولاتي وابر وصول قطي سيدي هاي هدي بقول قطي ماشي رسول شيء يريسو ماشي كل شيء واي dadkaas dadkay waay dadka isweydiinaya farmaajo yaa waay dadkaas waa dadkayga aniga markaas waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo dahfurkaan aan ku dahfurayno darseynta waxyaabahan u dooranay magaalada waxaan u dooranay waa beri degmooyin kale hawlo badan ka socda waxaan u dooranay maxaan ku raahdaa waa beri waxaan ognahay in hawl badan oo wanaagsan laga qabtay degmooyin kale naftigooda inay hawl wanaagsan wadaan oo qaarkoodna ay si fiican u shaqaynayaan inta hartana waxaan leeyahay hawsha darseynta oo macnaheedu yahay difaac dariskaaga daryeel dariskaaga soo saas maaha inaad dariskaaga difaacato daryeesho oo ka warqabto dariskaaga macnaheedu waxay tahay waa berigii hore waay waxaan idiin sheegayaa waxaan runtii ay soo xasuuseen intaan soo maraayay dowlad goboleedka Puntland iyo dowlad goboleedka Galmudug dadkaas wanaagsan siday noo soo dhaweeyeen yaan arkaa oo kale noo soo dhaweysay anigu waqtigeyga waxay ii soo dhaweyseenna hal mid yaan hubaa anigu inaan ahay wiilkiina inaan ahay marka labaadna inaad fahamsantihiin wax dowladnimo tahay inaad fahamsantihiin dowladnimo macnaheedu waxay tahay in qof walba u fahmaa loo baahan yahay dowladnimo waa shacab dowlad waa idinkaa keenay dowlad ma jiri karto la'aantiin dowladdu iyo annagu waxaan nahay shaqaale waxaan nahay adeegayaal anigaan ugu horeeyo mudane yariisow iyo ku-xigeenadiisa kulligaan waxaan nahay dad idiin shaqeeya idinka oo amarkeena ku shaqeeya oo idinkayna ka yimi awooddeeda inaad lahataan la rabaa marka inaad ku ilaashataan dowladnimadiina awooddeedana waa leedihiin waxaa ugu horeeya oo loo baahan yahay inaad ku ilaashataan inaad idinka qof walba oo halkan fadhiya iyo qof walba oo waa beri iyo guud ahaan magaalada Muqdisho degan inaad istaryeeshaan inaad iska warqabtaan inaad isdifaacdaan macnaheedu waxay tahay waxaad taageerteen oo aad taageerteen dowladdiina dowladdu waxa weeye waa ilmo idinkaa dhasheen oo kale haddii hooyadii aabbuhu ay dayacaan ilmahaas see noqonaya haddii aad dowladda dayacdaanna
dowladdu waa qaab darnaanaysaa haddii laakiin dowladda ay ilaashataan oo aad xaafadiina nadiifistaan oo canshuuraha bixisaan oo amnigiina aad ka shaqaysataan oo qof alla qofkii dhibaato xaafadda ku ah aad u soo sheegtaan booliiska ama nabad sugidda u soo sheegtaan macnaheedu xaafaddaas waxay noqonaysaa xaafad wanaagsan oo nabada haddii laakiin kii xumaa la qarsado oo kii xumaa guryaha lagu haysto waxaa imaanaysa kuwii xumaa inay xoog bataan kuwa xun uma dhex noolaan karaan waxaan rabnaa inaan xamar nabad ka yeelno xamarna nabad waxay ku noqonaysaa iyadoo la xoojiyo darisentry iyadoo la xoojiyo oo raggaas odayaasha ah oo difaaca dariska ah halkaas fadhiya iyo idinkaba aad ka wada shaqaysaan dadka xun oo nagu dhex jira oo dhibwadayaasha ah oo qaswadayaasha ah oo u shaqeeya cadowga oo shabaabku ay kow ka yihiin inaan qabanno aynan ka baqin marna ha yaraat marna aynan ka baqin waa laga yaabaa inay maalin wax dili karaan iyo wax ma dilaan ilaaha wax dila marna ka baqi mayno haddaan isugu tagna kulligeen oo qof walba qofka kale uu garab istaago oo darisaynta aan xoojinno waxaan nii sheegaynaa ma nagu dhex noolaan karaan wallaahi way ka cararayaan anaa nii sheegaayo waxaan rabnaa amniga iyo arrimaha bulshada waa isla socdaan markaan ka shaqeynayno amniga arrimaha bulshada inaan ka shaqeyno macnaheedu waxay tahay xaafadaheennu inay nadiif yihiin inaan dib u soo celinno iskaa wax u qabso oo qof walba dariskiisa iyo gurigiisa uu nadiifiyo soo saas maaha macnaheedu waxay tahay qof walba iyo business walba hortooda inay biyo ku shubaan oo ay busta ka ilaaliyaan maxaa yeele caafimaad maaha dowladda waxaa laga rabaa marka dowladda waxaad u dhibateen waxaa laga rabaa ammaanadaad u dhibateen inay idin hayaan oo ay idin keenaan wax alla wixii adeega u baahan tihiin oo ay idin keenaan iskuulladii u baahneedeen ay idin keenaan waxaan helada caafimaadka ay idin keenaan oo ay jidadka ay nadiifiyaan iyaga naftigooda boorahana maxaan ku rahdaa la dado dowladdu intaasaa ka rabtaan dowladdu waxaa ka rabtaan in jidadka ay nalal ka dhigto oo iftiin noqdo oo la waayo meel uu tuuga galo idinka iyo dowladdu hadday wada shaqeeyaan marka shacabka iyo xukuumad iyo dowladdu hadday wada shaqeeyaan waxaan aaminsanahay magaaladan muqdisho waxay noqonaysaa siday ahaan jirtay magaalada ugu nabadgelyo badan adduunka dadkeedii waa tihiin annagana dowladdeedii waana waxaa naga haray oo keliya waxaa naga dhiman oo keliya inaan gacmaha isqabsanno waxaa naga haray oo keliya inaan cadowgeena meel uga soo warjeesanno waxaa haray oo keliya dadka soomaaliyeed inay walaaloobaan keliyaa haray waxaa haray inay is-aamintaan intaas haddaan helno waxaan hubaa oo xaqiiqa ah soomaaliya xamar bay ka bilaabanaysaa oo caasimaddii ah madaxii ah haddii ay xamar hagaagto dalka intiisa kale waa hagaagaya insha allah waxaa noo badana oo aan ku faraxsana waxaan ku faraxsana shantarka waa beri goormaasaan u dambaysay goormaasaan u dambaysay waqtaala soo maa waa soo noqonay soo maa anna waan ku soo noqonaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu